Soomaali baynu nahay xoog cidna laguma caburin karo laguma qabsan karo arrinkaasi waa wax aan marnaba suurtoobayn dadkaasi inay aayahooda iyo maslaxadooda ka tashadaan bay rabaan sida yeeli lahaayeen iyo taladooda iyagay u taal kow horta waxaan waafaqsanahay go'aamadii ay soo saareen garaadadu iyo qaabkii ay muxuu ahay shirkoodu ku soo dhamaaday annaguna waa ku waafaqsanahay arrinka kale Somaliland laba cisho ka hor waxay yiraahdeen waxaanu joojinay xabad joojin bilaa shuruuda baanu qaadanay taasoo ay waxba ka suurtoobine dilkii iyo madaafiicdii iyo masiibadii ay weli sidii u socoto maalintii labaad runtii arrinkaasi waxaan leeyahay waa gef waa khalad xabad joojinta madaafiicda aad ku garaacaysaan magaalada dadka maxasta ah oo horeyna u qaxay aad u qixiseen haddana qaxaya mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya waxaan marka la yaabi la leh oo aan xusayaa in dowladda Somaliland ay yiraahdeen xabad joojin baan sameynayna dabadna xabad joojin maalin kaliya xataa aan istaagin xabadii وحبدي waliba sii hodhay madaaficdii iyo oo magaalada lagu qubayo dabadna guriga ku burburayaan dadka ku dhimanayo ninna xoog nin kuma qabsan karo adduunka ninna kuma hodmo dilka oo wax badan baa dilay oo waxaasaan wax ku noqonaya ma noqonayso arrintaas meelna kama magaalada Laascaanood horta Ilaahay waxa ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala fitantan iyo dilalkan iyo barakacan ka socda inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala inaga dajiyo runtii waa arrin murugo leh oo qof kasta oo muslimna taabanaysa dhiig muslim oo daata waa arrin khatar oo la isku xisaabtami doono subxaanahu wa ta'aala Ilaahay baa noo sheegay lahadmul kacba كعبة ولا الدمية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باكفض إن قف بلا أنا ليجي سلا ضاضيه فما بالك به رجب ومحرم كهول وجهه وليج مسلم وهذا ليج صوماليات وما نيجي استضاضنا يا والنصيب در بدبا جوجين إن هذا ضدك مدافع دي وهو يلا لدعو وحلق هذا كرا ما أهن قرب هذه مرصد حادة عن وباقينا مملكة Somaliland محبد جوجيو waxaan ognahay oo hore simadu waxa way ugu baaqeen inuu arinkaas dhinaca kale isku bedeli rabo waana hadda sida muuqato oo hore simadu ugu baaqeen marka hore Ilaahay waa mahad iska leh mahad dhamaanteed Rabbiga iska leh mar labaadka waxaan isleeyahay arrinta ay ka hadleen beeldajiyaashu oo galabta shirkayagan jaraa'id halkan aan ka hadlayno waxaan uga hadlaynaa qadiyada Laascaanood waxaan filayaa maalintii toddobaad inay tahay dagaalku maanta waa nasiib darro weyn oo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in maanta oo dhowr iyo 30 sano Soomaali ay burbur ku jidhay oo laga soo kabanayay maanta oo loo gudbayay xilli dadku ay dhibaatadii iyo xanuunkii burburka uu keenay in maanta dib loogu noqdo dhibaato iyo xasuuq iyo masiibo runtii la oran karo waa wax aan Ilaahay agtii hortiisana ku fiicnayn bini aadanka iyo masaalixdiisa iyo insaanimadan aan ku fiicnayn waxaan intaas sii dheer dowladda maamulka Somaliland laba cisho ka hor waxay yiraahdeen waxaanu joojinay xabad joojin bilaa shuruuda baanu qaadanay taasoo ay waxba ka suurtoobine dilkii iyo madaafiicdii iyo masiibadii ay weli sidii u socoto maalintii labaad runtii arrinkaasi waxaan leeyahay waa gef waa khalad xabad joojinta madaafiicda aad ku garaacaysaan magaalada dadka maxasta ah oo horeyna u qaxay aad u qixiseen haddana qaxaya
mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya. arrinka kale, Soomaali baynu nahay, xoog cidna laguma caburin karo, laguma qabsan karo. arrinkaasi waa wax aan marnaba suurtoobayn. dadkaasi inay aayahooda iyo maslaxadooda ka tashadaan bay rabaan, siday yeeli lahaayeen iyo taladooda iyagay u taal. kow horta waxaan waafaqsannahay go'aamadii ay soo saareen garaadadu iyo qaabkii ay shirkoodu ku soo dhammaaday, annaguna waa ku waafaqsannahay. arrinka labaad waxa weeye xabad joojinta darafka kale ee Somaliland ay yiraahdeen bilaa shuruud baan ku joojinaynaa, inay si degdega u qaataan oo uga dhabeeyaan arrinka. waxaan beesha caalamka u sheegaynaa iyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, meesha waxa ka dhacay iyo dhibaatada ka dhacday in loo soo diro dad xaqiiqo raadina oo arrinka baara dhibaatada meesha ka dhacday iyo xasuuqa iyo masiibada meesha ka dhacday. laanahu waa waxaan marnaba aan la ilaawi karin. waxaan leeyahay maamulka madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi inuu arrinka wixii dhacay waa dhaceen, dhibaato dambe inaanay dhicin ay halkaa ay ku ekaato. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قديدا سدلا سانو يدغالكاس هوريا بان ربا inaan kelmad ka iraahdo. waxa way marka hore Ilaahay waan ka baryaynaa inuu Ilaahay faraj khayr u bixiyo oo nabad ka islaaxiyo halkaas meeshaas dhibaatadu ka dhacayso oo dadka abriyaaga oo caruurta iyo dumarka u horeeyaan iyo odayaasha iyo dadka maatada dhibaatada ku gaaraysa iyo hooyada la burburinaya intaba. waxa way waxaan leeyahay insha Allah Ilaahay baan ka baryaynaa inuu faraj khayr qabo bixiyo oo nabad ka soo islaaxiyo. waxaan marka la yaab ila leh oo aan xusayaa in dowladda Somaliland ay yiraahdeen xabad joojin baan sameynaa, dabadna xabad joojin maalin kaliya xataa aan istaagin xabadii. وحبدي waliba sii hodhayo madaaficdii iyo oo magaalada lagu qubayo dabadna ay guriga ku burburayaan, dadka ku dhimanayo, inay dadka saa u galaan oo ciidamadooda ku fasaxaan xaq uma laha, waan xaq daro. yacni dhimashada dad islaama misna dad islaama oo islaynaya sharciga islaamka ahi wuxuu ka qabaa wax weyn. ninkii xaqdaro ku dila naf oo marka horeeto intaasoo arrimood baa la isdaba dhigay qur-aanka Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo leeyahay ninkaas qofkii xaqdarre qof ku dila islaama jahannama oo asli ah Ilaahay waa lacnaday, cadaabo cadiim uu leeyahay. marka dee intaasoo dhan baa u sugnaanaya. adduunkana dee ilaah baa xukuma, ilaah baa dadka u qarqaybinaya. adduunka maaragtay wuxuu dhib u geysto aakhiro iyadan laga sugin baa dulmigu adduunka la soo saaraa oo ilaahay ka jaba keenaya. marka arrintaasna waxaan soo jeedinaynaa in si dhabaal loo dhaqangeliyo arrinta lagu dhawaaqayo xabad joojinta, labada dhinac bay u joojiyaan. waxaan leenahay dad Soomaaliyeed tihiin, dad Islaamaad tihiin, dad haddar xidid iyo xasabo iyo ehla nooc walbaa tihiin. inaad xabad isugu ogtaan waxa weeye wax wanaagsan maaha, hadda waan maaha, wax xaq daraana weeye. in dadkooda hadlo haddii wax la kala garsado wax la arki jiray oo la yaqaano dabeedna saas wax lagu xaliyo. laakiin xoog iyo xabad no, arrintaas macquul maaha, waan qaldan tahay. waxaan leenahay qaladkaasna hala joojiyo. annagana waxaan leenahay wixii nagaga habboon oo sharci ahaan, islaam ahaan iyo ehel ahaan intaba waxaan rabnaa inana barmarinay siday tahay aanu u samayno. ninka daalimkaha waxaa leeyahay in daa'ifataan min maqtatalo faaslixu baynahuma fain baqad ixdaahuma cala al-ukhraa faqaatilu allatii tabqi xataa tafii'a ilaa amri illah. markii dadku isku gardaroodaan, kii gardaran ayaa leeyahay la joojinaya, gardada jooji
loogu gorqaybina si cadaaladda markaasna hadduu diido waa laysugu tegaya sharciga islaamka saas qaba maanta runtii marka haddeer waxa weeye dee lama garnaqsan xabad baa laisla dhacay waxa weeye hala garnaqsado ha laysu noqdo wixii dhacay oo dhibaato ah waa dhaceen intaa wixii ka dambaysa nabad ha lagu aslaaxo oo lagu dhameeyo insha allah baan naga qabnaa ninna xogo nin kuma qabsan karo adduunka ninnana kuma hodmo dilka oo wax badan baan dilay oo waxaasaan wax ku noqonayaa ma noqonayso arrintaas meelna kama jidho markii dhimasho maxaa dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dad si walbaba ehel baad u tihiin hadhowda baad ka qamiyoon doontaan oo ka murugood doontaan markii xaaladda tan la dhaafo oo muxuu ahaye ay dhammaato kolley waa dhammaanaysaa insha allah sidaasaan kusoo gabagabaysanayaa waan ku baaqaynaa in xabadda la joojo ilaahay mahad iskale subxaana wa tacaala maanta halkan ugu kulmiyey mahadda eebbe ka sokow waxaan rabnaa dhowr kalmadood inaan ka idhaahdo ama aan ka dhahno arrinta haddan taagan ee dagaalka ka socda magaalada laascaanood horta ilahi waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala fitantan iyo dilaalkan iyo barakacan ka socda inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inaga dejiyo runtii waa arrin murugo leh oo qof kasta oo muslimana taabanaysa dhiig muslim oo daataa waa arrin khatara oo la iskula xisaabtami doono subxaanahu wa tacaala ilaahay baa noo sheegay lahadmul kacba kacbadoo la dumiyo xadiiskii rasuulka ilaahi sal ly wasalam baa ka fudud in qof bini aadana dhiiggiisii la daadiyo famaa baalik bilihii rajab oo muxaramka ah lagu jiro oo dhiig muslim oo haddana dhiig soomaaliyeed oo maalin kasta daadanaya waa nasiib darro taasi waa iga dardaaran qadiyadda labaad waxaa weeye dadka dhaawaca ee barakacaya in loo gurmado ganacsato ha ahaato isima ha ahaadaan siyaasiyiin ha ahaadaan meel kasta in looga kaco oo looga gurmado oo wixii la tari karo la taro waa iga dardaaran qadiyadda labaad fitanta yacni shay ku bilaabato waa fududahay laakiin sida lagu damiyo waa adkaanaysaa adduunka oo dhan baa hadda waxay fitan ka socotaa dhulgariiraa socda barakac baa socda innaguna xabad baynu isla dhacaynaa ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu naga qaboojiyo ilahay waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala fitantaas inuu ilaahay naga dejiyo ilahay waxaanu ka baryaynaa dad muslimiina oo islaax bayna naas ka dhexeeyo inaynu noqonno waxaana loo baahan yahay muslimiintu hadday isqabtaan ama dadka walaalaha hadday isqabtaan waa la dhex galaa faaslixuu daata baynikum faaslixuu akhweynikum war ummadda walaalaha waa la dhexdhexaadaya kulligan mas-uuliyiin baan nahay mas-uul baa inaga saaran ama dhaqan ha ahaato ama isima ha ahaada ama siyaasiyiin ha ahaadeen ama madax ha ahaato waxaa la rabaa arrinkaa in loo kaco si degdega annaguna kow baanu ka karnahay insha allahu tacaala waana baxaynaa waxaanu go'aansanaynaa hawshaa inaanu ka qayb qaadanno naf iyo maalna aanu hurno sidii ummadda masaakiinta ah maslaxad loo kala dhexdhigi lahaa waxaan leenahay maamulka somalilan inuu joojiyo xabadda iyo madaafiicda uusan u aabbayeeleen dadka rayidka iyo birmageedada masaajidada goobaha caafimaadka goobaha waxbarashada goobaha bulshada rayidka ah waxaan leenahay xabad joojintu somalilan waa inay ka ahaataa mid dhab ah dhinaca kale isku bedeli rabo waana hadda sida muuqato oo horey ismadu ugu baaqeen marka waxaan rabnaa dhibaatadu inaysan intaas waxa weeye ilaahay uu ku ekeysiiyo hadduu ilaahay yidhaahdana waxa weeye ninna nin waxa weeye dhulkiisa kuma maamuli karo dadkii deegaanka ayaa tashaday iyagaana waxay rabaan horumarkooda iyo aayahooda inay ka tashadaan waxa weeye ninna nin laguma khasbi karo lasoo barakiciyey guryahoodii iyagoo degan lagu soo duulay in dadkaas bulshada reer puntland iyo bulshada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in dadkaas si degdeg ah gargaar degdega loola gaaro loo gurmado baan waxa weeye u farayaa dadka dibadda jira oo qurbo joogta ah iyo dadka daljoogta ah shirkadaha waxaan u faraynaa halkan jooga shirkadaha ugu waaweyn dalka ah
iyagana inay arrintaas ka qayb qaataan waxa weeye dadkaas sidii gurmad degdega maaragtay loo gaarsiin lahaa